الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، وعن كبل بين آيات بقولي اللواتن كم إذا سورة البقرة قال الله تعالى: إلهي بأوحل ولن ترضى عنك أديك كارها للنقل ميسو هدات هاي قفك مسلم كأه اليهود ولا النصارى لمك يهود الله يرادو يقال ذاك لا غير نصارى أما كريستنا كمن رالي كان نقول مايو حتى تتبع شرط راعدو ملتهم دين توده قلوا حتى هذا إن هدى الله إلهي هنون كيس هو إساق أو كلي ينبأ الهدى هنونه ولا إن اتبعت هدي راعد بلهي أهواءه ربيتان كوده بعد الذي كيد بدي جاءك كوي مذو من العلم علمك السماوي إلهي حقي سكاقي مكذب ما لك كوما سبنان من الله إلهي حقيس من ولي عد كادفاع على مجرد ولا نصير عد كوهي لنيسان مجرد الذين آتيناهم الكتاب هو أن كتاب كي توراة سيني يتلون هو أخري أيام حق التلاوة أخرنتي سببتها أولئك يؤمنون به كواس كتاب كاوي رميسين ومن يكفر به عدة كجار وذي كتاب كاه فأولئك هم الخاسرون كواس وقول دريستبوا لهي حقائق بو هلكن إلهي نوصل بندقيا لبدا قلو يهودية النصارى قرآنكم مقعودة سداو كتل بامي ayaa ilaahay uu ka warramay khatarta ay u leeyihiin dadka muslimiinta ah iyo dhibaatada ay ku hayaan taasoo ah inay doonayaan inay duufsadaan bay rabaan oo diintooda ay ku duwaanayta islaamka ka saaraan diintoodu waxay tahayna xataa tatabica milladaasi ama diintaasi waxay tahayna ilaahay baa fasirayoo waxa uu wala in tabacta ahwaahum وهو هودنا والربيتان marka ayada qaybta dambe qaybta hore ay fasiraysa diin sax ay hayaan inaanay jirin laakiin ay tahay rabitaan iyo waxay jecel yihiin way diintiiba waa kuwan ka gooro inaga aynu soo arkayna ayadaha Ilaahay ku soo cadeeyay marka waa laba midun in la raaco hanuunka Ilaahay uu yiri innahu dallahi huwa al-huda oo islaamka ah wana sidoo Ilaahay faray adoomaha uu naga doonayo iyo inay dadku raacaan sida Ilaahay uu ka digay oo ah halowga iyo hanuun la'aanta yahuudiya nasaaradu ay hayaan waxa kale oo dambi weyn iyo jariimada dadku iyagoo cilmigii samaawiga haya oo aan la bedelin oo la nasakhin oo uu hor yaalay baran karaan oo culimadii aqoonyahankii diintu ay u hayaan inay barbar maraan بعد الذي جاءك من العلم علمي سماوي أذيقه هيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما كم إذا أبو النبي محمد كان كتاب كي توراة وحكم إذا وكحنا قه رسولك صلى الله عليه وسلم سيدة توراة وحلوم وذا النبي موسى ما أنت هدو شوقه أنا وذاك على أفرناتين إنه راعى النبي محمد مويان ساس النبي عليه الصلاة والسلام waxa aad iyo aad u waajiba dadka islaamka ah in Ilaahay dhageystaan oo cidda aayadahan lagu hadlayo waa inaga iyo had walba dadka muslimiinta ah jooga Ilaahay xaqaa'iq oo dhan haya adoomaha abuuray quluubta iyo muuqaalka dadka intaba ka soo waramaya saas uga digay labada qole maanta adduunyada ku orinaya kol badhan u boodaya ciriya dhul baxaya إلا ما شاء الله كتلنا لابت وقراع يا أدون إلى أساس وقدقة نبي محمد عليه الصلاة والسلام يسقون وكدقة وحولها لا تتبعون سنن الذين من قبلكم ولك مديد كهر رين إذا رات كودي قري دونتان بركوا أيام يهودية النصارى ذا أيام لقول رسول كهاب هذا أيو ضدك هنك وين هلا وقينا ضدك وسوت شيدان دوني ولا بضع قلا إذا وحلا جمارمان إنه براروتشين لهين أرين لا يقان الغزو الفكري
duulimaadka caqliga ghaswul cuquulna waa la yidhaha howlaha ugu badan ay hadda fuliyaan waxaa ka mid a qarniyadii dambe ay aada iyo aad dadka muslimiinta ugu waxyeeleeyeen shayga loo yaqaano duulimaadka maskaxda dagaaladay berigii hore wadeen qaar gacantaabay haayeen sidii dagaaladii aadka u adkaaya iyagii muslimka dhex mari jireen macatab kudirirka kaniisaddu ay hogaaminaysa lagu leeday aada loogu dhintay markii dambe waa fikireen way shireen dabeedna waxaa la yidhi dadkan in dalkooda iyo jirhkooda la qabto oo loo xoog sheegtaa suuroobi mayso ruux jihaadiyo adag bay leeyihin waynu ku soo eegnay laakiin aan dhinac kale uga wareegin dhinacii kale looga wareegaya wuxuu noqday dadkan in wax laga bedelo garaadkooda iyo cuquushooda markaasaa waxaa loo fikiraa waxa la yidhaha ghaswulcuquul oo in qalbigiisa qofka la qabtaa ka muhiimsan in jirhkiisa la qabto taa runtii waxaynu odhan karnaa weerarkaas ilaa 7 meelood buu ku jihaysnaa nimanka mubashiriinta la idhaahdo iyo munasiriinta iyo mustashriqiinta iyo mustacmiriinta afartaasaa isu kaashaday waa erey bixin kaaga baahan inaad qof muthaqaf oo muslima markaata inaad wada barato in sheekhaa beri dhowr iyo 80kii bukhaarigu noo akhriyi jiro in aad ugu cilmiga ugu fiicanna uu ahaa xadiidka markaa in ardaydii ka mida buu kitaab ka qaaday almustashriquun ayaa kitaabka markaa cinwaankiisu ahaa markaasuu ihi kuwii baryeystay oo waa maxay kuwaa baryeystay markaa ninkii ardayga ahaa baa la yaaba wuxuu ihi sheekh bukhaarigiina waad akhriyaysaa mustashriqiintana mataqaaniya de waad ka dhacsan tahay waad ka dhacsan tahay buui mar haddaanad mustashriqiintiiba garanayn inaad ardayda wacyi geliso dee markii dambe uu sharxada uu la fahmay almuhim intuba waa dadka duulimaadka wada un qolana qoraalkay kusoo bilaabaysaa qola dhaqaalaha qola kaniisadda qola siyaasadda waxoo dhan way iskaashanayaan marka 7 meelood inta badan weeraraan caqiidada ka mid ah zaczacatu alcaqiida in dadkii muslimiinta caqiidada laga weeraro oo islaamkii laga shaki geliyo oo shubahaad lagu furo oo qofkii jacaylkii uu diinta u qabay iyo abateedkii iyo kalsoonidii baa laga dhaawacaya ama diinta nasaarada ha galo ama yuu gelayna islaamkii uun inuu fudaydsado oo uu dhinacaa uga baydho arrinta labaadna waxa weeya nidaamkii shareecada ee la dabiqayey ee la dhaqan gelinayey ee samaaxadda watee nolosha macaan dadka dhadhansiinayey in laga durkiyo taana hay-adaha u qaabilsanaynu ognahay oo dee qof la wada garanayo isla markaana meelaha wax laga xukumo oo dhan shareecada laga qaado oo qawaaniin dadku ay samaysteen lasoo dhigo oo tadbiiqa shariica shareecada in la dhaqan geliyo inta u yarba ha ahaatee haddii ay timaado laga dagaalamo meesha saddexaad waa majaalka siyaasiga ah siyaasadda iyo diintu isma galaan saa daraaddeed hogaaminta ummadda waa in laga durkiyaa diinta faslu diini can idowla oo la idhaahdaa diintu masaajidka iyo wadaadka iyo meelaha ku egaata sida annagaba kaniisadda iyo rijaalal ugu eg tahay nimankaa boobabka ah markaa siyaasaddiina dee waxaa lagu hagayaa wixii la doono ee dadku ay qortaan ayaa lagu hagayaa oo suldada iyo awoodda u sarraysaa waa dadkaa codaynaya waxay idhaahdaan iyo kuwa wakiiladooda ah ilaahayna la dhegaysan maayo rasuulna la dhegaysan maayo qur-aanna la dhegaysan maayo iyadoo taana la socdaan nidaamkii awoodeed ee markaa siyaasadda ilaalin lahaa waa kii caskariga ahaa inuu isaguna noqdo midaan diini ka muuqanin si aanay ugu hiilinin muslimiinta arrinta saddexaad waxa weeye iqtisaadka dhaqaalihii inuu noqdo dhaqaale ka maran islaamkii oo ribadiisii iska wata oo cuquuddii faasidkaa iska wata oo dakhli iyo dhaqaale in lasoo saaro mooyaane aan loo eegeyn xalaal iyo xaaraan maxaa xalaala iyo maxaa xaaraana waxa eega dhaqaalaha islaamiga ah oo intaasoo dee baabo xalaal iyo xaaraan ka warramaysaa jira laakiin nidaamkaa kale ee caalamiga loo bixiyey waa mid aan eegaynin xalaal iyo xaaraam taasina markaa waxay keenaysaa in laga durkiyo dadka muslimiinta ah wixii markaa wax u kala tilmaamayey ee wax u xalaalayn lahaa arrinta afraad waxa weeyaan ama aan idhaahna ee shanaad nidaamka usrada qoyska laftiisa inuu noqdo qoysay dee say doonayaan usoo dhigaan
oo ninkii gabadhii la isku xoqo ama ninkii xaaskiisii la yiraahdo iyaduba xiniyaha u soo bixi gaadhay gurigeeduna waxbay maamulaysaa way ku barbar soconaysaa way shaqaynaysaa si ay taasi ugu hirgashana dhalmadana ha iska yarayso midhuun bay dhali kartaa ama laba iyadoo suxul duuban oo shandadeedii la ordayso oo kaba kulul iyo koofiyad bira gashan iyaduna ay ninka barbar cararto marka qoyskii laba madaxweyne uu noqdo laba jeermaan bay meeshu leedahay in yar kadibna way isku dhacayaan furiinka qudhiisaaba fiican bay ku leeyihiin marka taasina waxa daba socdaa masaladii la oran jiray xoreynta gabadha ama ruuxa dumarka ay la xoreeyo maxaa laga xoreynaya waxa laga xoreynaya ilaahay baa laga xoreynaya rasuulka laga xoreynaya diinta laga xoreynaya ninkeeda laga xoreynaya bay ku leeyihiin wax diinaba hadii la soo qaado diinta iyo ninka adoonsanaya ninkuna waa adoonsanaya islaamkuna waa adoonsanaya shubahaad badan baa marka la soo guraya ka ninka saalooyid kan saalooyid yarkii waxa lagu afuufaya taana waxa daba socda marka ruuxii dumarka ahayd in la qaawiyo oo la yiraahdo xijaabkii waa dhaqan carbeed waad xorowday waad qaawin kartaa wahalum bajar waxa marka isaguna barbar yaala ama qodobka lixaad uu noqonaya meel aad u xasaasiya oo aljiil annaashi in gacanta lagu dhigo la jiheeyo qarniga soo kacaya ila adduunku waa ummada isbedelaya qarniga soo kacaya iyo daayirta marka majaalka ama dhinaca waxbarashada manahijta waxbarashada laga bilaabo rawdada ama xanaanada ila PhD da inta la diyaarinayo inta in rag qaabilsan oo dhaqaalihii hayo qoraalkii hayo la dul dhigo oo caalamul islaami loo dhiga manahijta manhajka wax lagu baranayo waa ka soo saara ardayga siyaasadda waxbarashada waxa weeye qofka la doonayo manhajka soo saara manhajkiiyo muallimka soo saara qofkii la doonayay marka taana wax iyagu ay isku hagaajiyeen oo la diyaariyeen uu noqdo doorka diintu ay ku leedahay in aad da'iil looga dhigo ana wax aad u yar quraanka sida loo dhigayo xiisada goorta la dhigayo muallimka dhigaya mushaharku qaadanayo waxa soo dhan ardayga loo wada tusiyo wax la wada yasay oo hooseeya xagga dambe taasina markaa waxay soo saaraysaa ka furanaysaa ragga hadhowta soo baxaya inay noqdaan rag ay leeyihiin wala wadamada muslimiinta ba iska joogaan oo u fikiraya sidii iyagu ay u fikirayeen hawlaha ay doonayeen fulin karaa waxa intaas oo dhan tuulaha loo adeegsanayaa waxa loo yaqaan iclaamka iyo qoraalka in wixii la baahi waxan sidii loo baahin lahaa iclaamkana gacanta lagu dhigo aslimadana laga ilaaliyo inaanu islaami soo galin akhlaaqiyaadkii oo dadkii laga dhaawaco iyo umuurtan oo lagu baahiyo iyo ummada shisheeyo oo gacanta ku haya marka toddobada arrimood la isu geeyo waxa faafaya waxaan ilaahay uu doonayo subxaanahu waxaan ilaahay uu ka digay subxaanahu wa ta'ala ee diin la'aanta iyo shisheeyo waxay doonayaan idan marka xalku wuxuu noqonayaa dadka muslimiinta ugu horeyn horta taafiir buu ku yeeshay caalamul islaami oo iyagoo laba dagaalamin baaba dadkiiba iska diyaar yihiinba arrinkii wuxuu gaaray dadkiiba inay iska diyaar yihiin kii madaxda ah iyagii buu daba socdaa kii aqoonyahanka iyagii buu daba socdaa kii dhaqaalaha iyagii buu qaanuunkoodii soo qaadanaya daayartii waa kuwa u suxul duubaya barigi hore kaniisaday ayaa la soo diri jiray oo Afrika iyo meelaha iyo adduunyada naxmaro oo xoogaa kaneeca ah ku cunto babab kuba dhiban jireen dadkii baaba imika iska shubmayo iyagii nooligii bixinayo kaniisadii Yurub ugu tagaya Yurub iyo Mareykan baaba ugu tagaya waxaan filayaa in dhalinyarada qaar kood oo tahriibay marka warwaraysataa wax lagu hebel kaniisad buu imika galaa wali lama qaabilino kaniisad baa imika qaabisho wali u sii hoydaa waabay ka nasteen bababkay u soo dirayeen iyo kharashkii lagu bixinayo dadkii baa markii ay quluubtoodii qabsadeen iyagii isnooliyay oo isxambaar noqday oo dhex tagayba marka ugu horeyn horta inaynu fahamnaaba muhiim waxaan ilaahay inooga waramaya casrigan halka uu marayo iyo sidoo u socday loo suubiyay loo salaxay ee loo caalamiyeeyay marka halkuna wuxuu noqonayaa ama mushkiladda marka hore waxa keenay jahliga hadii mesela aad ka jaahil tahay cudurka ku haya dawadiisa raadin kari maysid dadka muslimiinta diintoodina way ka jaahil noqdeen dadka waxaan ku wadana waxay u maleeyeen qof naasix oo u danaynaya halkuna marka wuxuu noqonayaa in diinta islaamka la barto dadka waliba aqoonta leh aqooyahankiina ay aad iyo aad ugu dadaalaan
arrintaa aynu ka warramayna duulimaadka noocaasa inay bartaan oo maraajic baa laga qoray kutub baa laga qoray caalam islaam mufakiriintu ay qoreen iyaga laftigooda kutubtoodii ay qoreen ay ku bareerayeen ay afkaartooda ku cadeynayeen baa taala maktabadaha oo banaanka taala qarniga soo kacaya in loo hagaajiyo manhajka waxbarashada tawciyada wacyigelinta ummadda in la badiyo dadka mas'uuliyiinta ummadda u madaxda ahi ilaahay arrimahan uu weydiinaya aakhire inaan ummadooda lu goynine oo aanay ilaahay ka hor imanine iyaguna ay ammaanada gutaan oo dadka aanay sidan u jahawareerinin dacwadda oo la faafiyo loo dadaalaana ay badato alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar baabkaana la oogo waa waxyaabaha xalka u noqon kara ghaswul fikriga waxaa la yidhaahdo marka daayartiinu qof maadi baranaya qof diini baranayaba mowduuca thaqaafada loo yaqaano ee qofka garaadkiisu inuu sareeyo qof waaciya yahay oo kala og waxa la kala macaashayo halka la isla marayo waa inaad noqotaa taasaynu baraarujin lahayn kutubta caqiidada iska baro xadiidka iska baro tafsiirkii fiqigii culumtii sharcigaha maadigii laakiin waa inaad ku xisaabtantaa waxaan ilaahay uu naga digaya intanoo arrimood casrigan halka uu marayo iyo meesha aad ka heli karto saasaad ku baraarugaysaayoo markaa aan lagu suldaari karayn oo lagu sabaaxadaynin qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu markaa ka warramay cadaaladda qur-aanka weeyaane inay jiraan qaar ahlu kitaabka ka mida oo iyagu rumeeyey kitaabkoodii keenana rumeeyey aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawati kuwii aanu kitaabka siinay qur'aankan bay rumeeyeenoo akhrintiisii dhabta ahayd bay rumaynayaan ulaa'ika yu'minuuna bih kuwaas way rumaynayaan kitaabkoodiina way akhriyeen akhrintii dhabta ahayd way ka run sheegeen qur-aankeennana way rumeeyeen waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku macneeyeen markuu ahlu kitaabkiisa ilaahay u soo eedeeyey wuxuu ammaanayaa asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadday wadaadadoodii iimaan la-aanta iyo ammaano darradaasi ku dhacday yuhuudda iyo nasaarada dadkii aanu siinay kitaabkan qur-aanka ah oo saxaabadii rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam yatluunahu xaqa tilaawati akhrintiisa dhabtaa bay akhriyayaan marka halkaa waxaad ka fahamtay inay jirto akhrin dhab ah iyo akhrin aan dhab ahayn akhrinta dhabtahay waxa weeye lafdan wa macnan inuu qofku lafdigiisiina waxyiga qaato oo akhriyo kuna dhaqmo tilaawadii iyo tadbiiqii israaciyo ku dhaqankii haddii laakiin ku dhaqankii halkaa uu iska dhigo waa tilaawo keliya cidda ka gaalowday qur-aankana way khasaareen yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow buu ilaahay yidhi udkuruu waxaa xustaa nicmatii alatii ancamtu calaykum nicmadaan idin siiyey xusa oo ku baraaruga wa annii waxaa kaloo xustaan anugu fadaltukum inaan idinka dheeraad siiyey cala alcaalamiin caalamiintii wakhtigaa hore wattaquu yowman maalin ka cabsada laa tajzii nafsun nafi aanay abaalin karaynin can nafsin shay-an naf kale laa tajzi bimacnaa laa tadfacu nafsu can nafsin shay-an nafina naf kale waxba kama difaacayso walaa yuqbalu minha cadlu madax furashana laga aqbali maayo nafta walaa tanfacuhaa shafaaca ergana waxba uma tarayso walaa hum yunsaruuna dadkaa loona hiilin maayo cid u hiilinaysaa ma jirto cid ilaahay haysto waa yeedhmadii reer banu israa'iila qisadu ay ku bilaabantay ayaa meelahan gebagabadaana ilaahay uu ku soo celiyey kuwii wakhtigaa nebi maxamed joogay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu u yeedhay oo wuxuu yihi nicmadaan idin siiyey xusuusta waa nicmadii diinta iyo nabadgelyadii ilaahay uu nabadgeliyey waalidkoodii uu nabadgeliyey kuwanna sidoo kale u barwaaqeeyey u badheedhay oo halkaa dejiyey waxaan idinka fadilay baa ilaahay u yihi caalamka caalamiintao dhan waxay culimmadu leeyihiin aabbayaashood caalamkaa ay joogeen ayaa laga fadilay laakiin caalamkan wakhtigan qur-aanku uu soo degayay dadka joogay waxa u dheeraad badan dadka ilaahay rumeeyey muslimiinta nebi maxamed horkacaya calayhi salaatu wasalaam qur-aankana saasuu ilaahay ku caddeeyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin dadka oo dhan kuwii ugu khayr badnaayo caalamka loo soo saaray saxayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii inoo caddeeyey khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarnigana qarniyadoo dhan u fiican marka ummaddan iimaan la-aanta ayaa waxay ka tuurtay meel durugsan oo aynu ilaahay nacdalay laakiin casri bay ahaayeen kuwo la fadilo la dheeraad siiyey
waxyaabaha dadka baraarujin kara diintana ku soo celin kara waxa kamid ah ilaahay iyo aakhiro inuu xusuusan yahay wattaquu yawman laa tajzi nafsun can nafsin shay'an walaa yuqbalu minha cadl walaa tanfacuha shafaaca walaa hum yunsaruun aakhiro xusuus qof aan aakhiro xusuusnayn dee iimaan ma leh arkaanta iimaanka waxaa ka mid a maalinka dambe inuu qofku rumaysan yahay aliimaanu bilyowmi alaakhir oo uu tudhaalo leeyahay oo uu eegaya xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa wuxuu samaynayo ee shar iyo khayr leh tas waxaa dib soo lagugu soo celin maayo bal iska ilaaliyo oo kaadi marka goor walba quraanku wuxuu inu xusuusinayaa caalamka dambe inuu sii soconay lama huraanka ah inaynu ku talagalno nafina naf kale waxba ka gudi mayso waxay u taagan tahay waxna u tari mayso difaacina mayso waxba ugu deeqi kari mayso uu qofkani ku badbaado sidoo kale qofkan haddii la qabsaday cadli ma jiro cadligu waa madax furasho intuu qofku xoolihiisa isku furto ama wax kale la sii daayo taasina ma jirto ergana ma taalo loona hiilin maayo markaa saasaa ilaahay u baraarujinaya subxaana wa tacaala addoomaha waa siday u badbaadi lahayn adduunyada iyo aakhira labadaba allah ina waafajiyo wahada ma aquluhu waastaqfir llah wallahu subxaana wa tacala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وسورة البقرة آيات بقولي أفر يلا قال الله تعالى إلهي بأوحد وإذ وقت حسن بمحمد ابتلى إبراهيم ربه ابتلى وحى امتحاني إبراهيم نبي إبراهيم ربه إلهيسي ayaa imtixaan mariyay bikalimaatin waxyaabo uu amray ayuu ku imtixaanay faatamahunna wuu dhammaystiray wixii la faray oo dhan wada fuliyey qaala markaa ilaahay wuxuu yidhi isagoo abaal marinaya innii jaaciluka linnaasi dadka waxaan kaaga dhigayaa imaaman hogaamiye qaala markaa nebi ibraahim waxa uu yidhi wa min duriyatii ilaahay ubadkaygana qayb ka mida madax ka dhig qaala ilaahay wuxuu uhi laa yanaalu cahdi ballankaygaasi gaari maayo iyo hogaamintaa wanaagsan aلظaalimiin dadka dulmi falayaasha ah gaari maayo waid wakti xus nebi maxamedow jacalna albeyta kacbada aanu ka dhignay mahaabata meel lagu soo noqnoqdo xaj iyo cumro loogu soo noqnoqdo linnaasi dadkaanu uga dhignay wa amnan meel nabadgelyo ana waan ka dhigay buu ilahay waاtakhiduu waxa aa ka dhigataan min maqaami ibraahim nebi ibraahim halkaa uu istaagay musallaa meel lagu tukado ka dhigta salaadaa sunnaha wacahidnaa ilaa ibraahim nebi ibraahim waxaanu amarnay buu ilaahay yidhi wa ismaaciila iyo inankiisii ismaaciilba an dahiraa baanu farnay buu ilahay waxaan faray nadiifiya beytiya gurigayga waa kacbada lidaa'ifiina dadka wareegaya ee cibaad ahaan u wareegaya u nadiifiya والعاكفين يكوا إسكفرديا والركع السجود يكوا الركوع سن السجود سن معنا دتك التكنية انت أبغى نظيفية مرك الله يقول مناسبة ذكر حيسا آياتها هرائيو آياتها نين وآخرينو علماء ذو حيلين وحوي فكر كي أما وحي أي فافين يهود يا إلهي ماشى كسر يودي فين يا مشركين تي أما قال دي عربيات بقى labada qoloba waxay isku xoqi jireen oo ay ku abtirsan jireen nabi ibraahim oo ay la ummad ahayn oo kuwana waxay leeyeen annaga ka farcano diintiisii baanu haysanaayo kacbadii uu dhisay nabi ibraahim ayaanu joognaa oo xokayn kana waa quraysh diintiisina waa baanu haysanaa marka maxamed iyo kooxda la socota cidla iska cararayaane nabi ibraahim annaga ayaa ku abtirsanay nabi diintiisina haysanaa nimanka kale iyaguna yahuud iyo nasaaraduna saas oo kale oran jireen marka rabbi waxa uu halkan ku cadcadeeyay sifaadkii iyo tilmaamihii qiimaha iyo quruxda badnaa ee uu lahaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam khaliilur raxmaan marka awsaaftiisa iyo tilmaamihiisa iyo mawaaqiftiisa iyo muctaqadkiisa waxa uu aaminsanaa oo dhan halkan ilaahay uu soo bandhigo iyo dhaqankiisa qiimaha badnaa
waxaa caddaanaya abtirsiimada ay ku abtirsanayaan inay tahay mid been iyo baatil ah marka qisada nebi ibraahim iyo sida loo soo dhex dhigay qisadii reer banu israa'iil oo xagga dambena aayada ka hadhan yihiin waa sidaas weeye nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxa ilaahay uu u doortay inuu noqdo khaliilu khaliil saaxiib keliya lama odhan karo laakiin alkhulla waa saaxiibtinimo aada u xeel dheer oo markaa meel gaadhsiisan ilaahayna cid uu khaliil ka dhigtay waxaa jira uun nebi ibraahim oo qur-aanka uu ku caddeeyey iyo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo iyadana sunnaha uu inoogu caddeeyey oo rasuulku waxa uu ihi anigu ilaahay baa khaliil ii ahe addoomihiinan kale cid khaliil ii ahi ma jirto haddaan khaliil samaysan lahaana abubakar baan ka dhigan lahaa buu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixa markaa asxaab bay u ahaayeen ummaddii wakhtigaa la joogtay laakiin khaliil wuxuuna u ahaa ilaahay buu ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam idan markaa khulladu waa saaxiibtinimo xeel dheer madaarij saalikiin sida uu ku sheegaya ibnu qayim raximahullah waxa uu leeyahay saaxiibtinimadaa waxa uu ku helay nebiyullaahi ibraahim sifaad badan oo qur-aanka kariimka ah ilaahay uu noogu caddeeyey oo mudan inaynu inaguna ku dadaalno si aynu wanaagga ilaahay awliyadiisa iyo ambiyadiisaa siiyey sifaadkaa in badan oo ka mida ama ilaa 7-8 suuratu naxli aakhirkeeda ilaahay uu ku sifeeyey nebi ibraahim ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifan walam yakun min almushrikiin شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وحلاي كسفين وها نبي قاس يسقى قف كليا بهذا أمد بها سفوين كوناكسنة أمد كلا تكسن يسقى بحنبار سنة بدقانته إلهي سوه كان سبها حنيف بها يو وحيحنا ودن كسر لحدي إلهي سنة كوتشها يسن أو wixii khayraho dhan u soo leexday shaakiran liancumi nicmooyinku ku mahadnaqi jiray nicmooyinka ilaahay uu siiyey mid diineed iyo midii dadka iyo midii duunyada intaba ilaahay buu ugu mahadnaqayay markaasaa ilaahayna ku abaalmariyey waxyaabaha uu sheegay suuratu najmi ilaahay waxa uu ku tilmaamay inuu wixii la faray oo dhan fuliyey wa ibraahiima aladii wafa waa ibraahiimkii oofiyey ibraahimna xus baa leeyay waa nebi ibraahimkii oofiyey wixii la faray oo dhan suuratu huud ilaahay waxa uu inna ibraahiima la xaliimun awaahun muniib saddex sifo isu raaciyay nin dulqaad badan buu ahaa oo cabsi badan ilaahayna u toobad keenaya suuratu daariyaad ilaahay wuxuu ku ammaanay nebi ibraahim oo sifooyinkiisa ka mid ahaa karamuhu wasakhaa'u inuu ahaa deeqsi deeq badan hal ataaka xadiidu dayfi ibraahiima almukramiin ayaad ka akhriyaysa salaan kadibba wuxuu u dhaqaaqay isaga oo laga yaaba hayntiisu inaanay badnayn neefku hayeyba inuu u soo gowraco oo u soo bisleeyo ciidamu sabri sifooyinka wanaagsan uu saaxiibtinimadan ku gaadhay waxaa ka mid ah sabirkiisoo aada u weynaa fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul raggaa sabirkoodu aadka u badnaa ee la yidhi nebi maxamed oo xagga sabirka kaga dayo ayuu isagu hormuud ka ahaa rasuulka nebi ibraahim calayhi salaam sifooyinkaa uu khulladii iyo saaxiibtinimada ku mutaysta waxaa ka mid ahaa albaraa'atu min ashirki waalmushrikiin gaal oo dhan buu ka gacan taagtay qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa bura'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum ilaa aakhir alaayaat aayaadkaa suuratu lmumtaxina kaga dayda buu ilaahay leeyay nebi ibraahim iyo muuminiintii la socday siday uga beri noqdeen ay uga durkeen gaalka ilaahay ka durkay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha nebi ibraahim uu saaxiibtinimadan ku mutaystay qiyaamuhu bijamiici maa amarahu allah calaa atami wajhin sidii ugu quruxdii iyo qiimaha badnayd ayuu u dhammaystiray wixii ilaahay uu faray oo dhan waa innaga halkan ku arkayna waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun wuu dhammaystiray wixii la faray oo dhan waxa ugu sii weynaa waxyaabaha uu darajadaa ku gaadhay waana ta ugu culus baabay ahaydeen
awlaadiisii mid ka mid ahoo uu jecel yahay aada u barbaaray yaa ilaahay uu tijaabo ka qaaday waxiidatun fii nawciha addoomaha ilaahay siyaabo badan buu u imtixaanaaye imtixaan nooc gaar ah markaasaa waxa le intood birtaa qaadato ilmahaaga jiifiyo dhegta dhiigga u dar gowrac baa layihi waa arrin aada iyo aada u cajiiba isagiina wuu isdhiibay inankiisiina wuu isdhiibay markii warkii uu dhammeeyey ee qacdi una ay hadhay ayaa ilaahay uu ka joojiyey subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu ka markhaati ku caddeeyey inuu imtixaan adag ahaa ina haada lahuwa albalaa'u lmubiin suuratu saafaad baad qisada ka akhriyi karaysa arrintaasi arrin culus bay ahayd buu ilahay ilaahay baa uga markhaati kacay marka arrimahaas oo dhan ee ilaahay uu ku ammaanay innaguna wixii aynu kari karayno kolle waa iska itaal yarnahaye inaynu ambiyada iyo saalixiinta iyo awliyada ilaahay bal isku dayno inaynu kaga dayna aad bay muhiim u tahay marka kuwaasi way eedeenoo way seegeene idinku haddii aad tihiin dadka aan shahaadanaya islaamkaa ku dayda baa la leeyahy rasuulkaa nebi ibraahim nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam saasuu ilaahay faray fabihudaahum iqtadi hanuunka ambiyadaasoo kale ku dayo nebi ibraahim baa ilaahay kelimaad buu ku imtixaanay kelimaadkaasi waa awaamir waxyaaba la faro kuwa aynu sheegaynaa ka mid ah isagoo nin weyn oo 80 jir baa waxaa la yidhi ilaahay wuxuu soo rogay sharci ah in la isgudo xadiidka bukhaari siduu tilmaamaya gudniinka waa idin garan soo maaha buuriyada in la jaro ikhtatana ibraahimu bilqaduum nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam siduu amarka ilaahay ugu degdegayey gudintii geedka lagu garaacayo gow ku siiyey odayguba wuu sigtay nebigaa ilaahay dirqu ku baxsada sakiin iyo minditoona ma raadinine amarkii ilaahay isagoo u degdegayu dhag ku siiyey taasina markaa waxay ka mid tahay in waxyaabaha uu dhammaystiray khisaal alfidra waxyaabaha wanaagsana diinteennu ay noo jidaysaybu guddiinkaasina ka mid yihi arrimahaasoo dhan markuu ka soo baxay ilaahay wuxuu u doortay in uu noqdo hogaamiyihii ummaddan inii jaaciluka linnaasi imaaman ilaahay wuxuu ictiraafsan yahi u ogol yahay ummadda inuu hogaamiye u noqdo ka ilaahay ogola ka edebsanaya kii kale ilaahay ma ictiraafsana ummado shisheeya ictiraafsan soo maad baqli jirin wax ictiraaf la idhaahdo oo dadku ay daba cararaan ka ilaahay uu ogoliyuu ictiraafsan yahay waxa weeye marka uu addoonkaasi ilaahay isu dhiibuu ka amar qaato ilaahayna wuxuu u ogol yahay ummadda inuu hogaamiye u noqdo laakiin hadduu isagu hallowsan yahay ilaahayna barbar maro lama ictiraafsanaa madaxna ummadda uma noqon karo saa daraaddeed dadka muslimiinta qiyaadadooda shuruuday leeyihiin shuruudahaasaa dib u akhriyi doontaa aayadaha laga faa'idaystayba marka aayaddani ka mid tahay nebiga nebi naxariis badan buu ahaayo dadku u naxariisanayay u dadaalayayna waxaa ka mid ah ubadka isaga ka soo jeeda ee ka farcan markuu arkay inuu ilaahay xil weyn iyo wanaag u ballan qaaday kolkiiba wuxuu soo dhigay ubadkiisana in lagu daro wa min duriyati ilaahay uu madax ka dhig buuri ubadkaygana mintu waa tabciidiyo dee kolle uu wada ogyahay inaanay wada hagaagayne ilaahay kii uu qalmana ilaahay uu ka dhig wey ubadkaygana ka dhig madaxtinimada ah qaala laa yanaalu cahdi aalimiin saynu hore u soo sheegnay ilaahay wuxuu ihi hogaaminta ummadda islaamka ma qabanayo mid daalima ama aan hagaagsanayn marka waxaad ogaataa ummadda ubadkaaga oo dhan ha la wada doonina intii miyir qabta ee caadiliinahunbaa hoggaan noqon kara laakiin daalimiintu ma noqon doonaan iyo dulmi falayaashu ummadda hogaamin uma noqonayaan daalimka u weynina waxa weeye ka ilaahay dulmiyey oo ilaahay see loo dulmiya dee ilaahay hal xaq buu leeyahay xaqa keli u leeyahay waa cibaadatuhu waxda keligii in la caabudo marka qofku hadduu diiday inuu ilaahay caabudo waa akbar daalim dadka kalena har u jiidi maayo saasaa ilaahay ogeysiiyey waxyaabuhu ummadda ku hogaaminaya waxaa ka mid ah inuu u diyaariyey nebi ibraahim isagoo amarka ilaahay qaadanaya kacbada dhismaheeda taana xagga dambeyn insha allah ku arki oo xagga macno ahaan dee dhismihii kacbada aayaadkaa ka warramaya horeeya aayaadkanna waxay tilmaameen faa'iidada beytku uu leeyahay iyo qiimihiisa beytkii waxaan ka dhigay baa ilahay uhi kacbadaa mathaabatan linnaas meel dadku uu ku soo noqnoqdo xajki iyo cumrada loogu soo noqnoqdaa ducadii nebi ibraahim baana ilaahay u aqbalay fajcal af'idata min annaasi tahwi ilayh ilaahu dadka quluubtooda waxaad ka dhigtaa mid u soo cishqiyaysa oo jecel kacbada iyo dadkeeda markaa qofku wuu ka caajisaa meelaha kale hadduu hal mar maro ama ku dalxiisee beytullaahi alxaraamka qofku hadduu tago kama caajiso waxaa kaloo ilaahay uu ka dhigay meel degan saa daraaddeed baa
ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ومد فريي دجناشا إن لا يلاليو قفك الدجناشا كله من يانين ودالم يهيبو عديني مركو حرية رسولك صلى الله عليه وسلم سندي سديدات بيت الله الحرام كأي مكان حرمدي وقتي أنت هنا دجالك فوق قاعدين كهر حرمدي أي لهاي ما أنت وصل نقط ساعد أن حرينا يوم بيرهاي حلالي عيد كلا كده قالوا كرتانا ما شرتو عيد كلا وهل كان كده قالوا كرتاه ما شرتو عيد كو حلاشان كرتا النبي محمد بكده قالوا ما شرتو هل كان سوق جوتشي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر يسقى من الشوقة وقت جي حجاج بن يوسف ومركا بيحتد حجك وقامين يا عبد الملك بن مروان وقت جيس أياني خوارجتي كمذا أيا ورا لا يكتو عكتو كتاج ليجي بس قبص عبد الله بن عمر حجاج بن يوسف وماشى علك وذا يسقنا لها بل تصتص عملك حجك لو أصحابي علمي قبضناي أيا وحول ور عبد الله يسكور أنا وصاب وقضي ده محان يسكور ما يقول بلاد ولا أنا ظهر ساله نبي محمد ضدك هل كان حرم كان يجلس وقال بوري هوب يدباطو ninka hubkan iyo dhibaatan iyo bodyguardkan iyo balaadan iswadata ninka keenay waa adiga khawaarijtaasina adiga ku soo eeganayaan marka mushkilada aad adigu keentay maxaad iga waraysan buu wala dadkii kacbada dumiyay marka asaas xaaladeedu waa macruuf wattakhiduu min maqaami ibraahim musalla umar ibn khattab allah ka raali noqdo waxa mulham ilaahay waxa badan oo ku ilhaamiyay waxa jira la ilaa muwaafaqaat umar عمر إلهي كوافق لما أردنا يا إلهي با عمر كوافق لكن وحويان عمر با إلهي كوافق وحو نبي قوش يقول ملاها كان نبي إبراهيم استاجا وحفي عن إننا كنت كنه آياتنا بس ودكتي سيدي بأمرك الصلاة دي سنة هيدا الضواف كدر بيسي أيها لو قلت كان يا مقام إبراهيم أكتيس الله ذلك عدد السنة هاي كدر بيسي واتخذوا أمر كاسواجرا قراءة كلا السبعية دي وحي تلمامسا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنا النبي أصحابتي وحي كردكتين ماشي النبي إبراهيم مركو كعبدا لسه يي ويستاغي ميلا كنت كذا لبدا waa sax weey inuu ilaahay amray yeenu ku amaanay asxaabtu in hawsha fuliyeen maqaamku markuu nabi Ibraahim dhisay oo halku istaagay cagaha u saaray hadda waxaynu aragnaa meel yar oo quraarado yuuban inuu raadki dhex yaalo basaasay munfasil uga ahayd oo gidaarka kacbada ay uga durugsanayd Saciid baa ka durkisay waxay u badan yihiin culimada taariikhdu inuu Umar ibn Khattab markuu hagaajinayay tawaafka inuu ka durkiyay saasay u badan yihiin waxyaabuhu ilaahay faray uu ku imtixaanay nabiga waxa kamid ahaa uu fuliyay wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaaciil an tahira baytiya lit-taa'ifin wal-'aakifin war-ruk'i sujud waxyaabuhu ilaahay faray bay kamid ahayd nadiif baalay nabi Ibrahim iyo inankaaga Ismaaciil labada rasuul bay ilaahay wuxuu faray beydkan dhismihiisana waa la faray saynu arki doono nadiifintiisana waa la faray marka nadiifintu waa mid maxsuus iyo mid macnawi labadaba nadiifin la arkayo oo maxsuusa oo aan la ogolayn wixii quruna iyo wixii wasakha iyo wixii dadka ku cibaadeysanaya dhibaya lama ogola waa mid la taabanayo taas mid macnawi oo si weynina way jirtaayo wixii had iyo jeer gaaladu ay keenaan iyo shirkiyaadkooda iyo diin la'aantana in laga nadiifiyo sidoo nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ugu dadaalay arintaas oo waqtigii uu xoreeyay rasuulku wixii uu horeeyay gacanta saaruu burburiyay baabiyay waxaan 360 salaam oo 360 ka maalmood lagu kala hagaajiyay oo kacbada tuulnaa ayuu ka xaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas aanay tahay oo mar walba guriga ilaahay baa ku awleysan oo ku haboon in la nadiifiyo wadahir baytiya idaafada waa tashriif gurigani kol haduu yahay guriga ilaahay adoo waxaad jeceshay gurigaaga inaad nadiifiso ama guriga boqorka la nadiifiyo ama guriga heblaayo uu nadiif ahaado maxaad u maraysaa bayt allah bayt wuxuu istaahilaa in la nadiifiyo la udgooneeyo la hagaajiyo masaajidada kalena waa la mid oo iyadana waynu ku amranahay عائشة وحيلة رضي الله عنها أمرنا أن نبني المساجد في الدور وأن ننظف ونطيب وحنا لا فرع معنا النبي قم بفرع عليه الصلاة والسلام إن نديجا مذي حافظها مساجدنا كرسله وأن نظيفنه وأن أدجورينه عبادين كينو قوانينه
ay taasina ka mid tahay si qofku isagoo raaxaysanaya cibaadadii qalbigiisa ugu soo jeedsado وإذ وقت حسن نبي محمد قال إبراهيم baa wuxuu ihi رب اجعل هذا إلaahay halkan waxaad ka dhigtaa بلدا آمنا maka ilaahay oo dal nabadgelyada ka dhig وارزق أهله من الثمرات dadka deganna arsaaqad sii man aamana minhum billaah ka iyaga ka mida ilaahay rumeeye arsaaqad sii واليوم الآخر iyo maalinka qiyaamaha rumeeyey gaalkii umuu ducaynin ba arsaaqada umuu dalbinba qaala ilaahay wuxuu ihi waman kafara ka gaaloobayna فأمتعه إسجنا ونور حين دونا قليلا نيا ودين تن الدنيا ده ثم أضره حنودي بقلين دونان كقصب إلى عذاب النار نار عذاب كده وبئس المصير ما الله نقضاء الله بتنا هالقصة وحب العالم مركا إسجوا واجبات كيسي جدنا النبي إبراهيم عليه السلام إنه الدعية مرر بدن بؤاد الدعية سورة إبراهيم ده آخر كده نوات كآخره كريز ربي أرجع ربي أو آدي يا صار نقنية نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ومدينة تجي وحاو أدعي مدينة أو لها إله وحن كبر يا رير مدينة إن سيسا أنتو نبي إبراهيم وحن أدعيني أنتو نبي إبراهيم مكاو دعية أهل كذا إنك بدل أيان أدعيني يا حرم بانا كذا يقولها مدينة رسول صلى الله عليه وسلم ما بين عير وثور أبدا مراد تكلم حيسه siduu nebi ibraahim ba xaram uga dhigay ilaahay u faray waxay tilmaamaysaa markaa tani qofka muslimka ee hami weyn xambaarsani waxaa aad ugu dadaalaya dalka iyo dadka iyo ehelka iyo ubadka iyo ummaduba inay nabad galaan ducadu u badinaya haruunku u badinaya dadaalku u badinaya naxariistiisa badan qofka had iyo jeer iimaan la oo sharka badanina wax ka galayba ma jirada منافقين تقولها كور ما وحول قاد همتهم أنفسهم نفتودون بأوها وكلجي هان نفتود أهم ميانا وأرضان لكن هم ومداد محن بارسنا دعادي صدر كيسا يدلال كيس إلهي وضلكن إلهي ومد آمنا كردقون نبتقليا بضا نبتقليا دونا قيمة هذا إلا هذا إن كستون نبتقليا دو مركا لراعي دين إسلام كعدالة دي شرطاء أي سوغانتو دين الله وإذا ارتدى تلك أصابي كبلا وانتي لباتدو يه nabadgelyada oo qiimaha badan waa in adoomuhu ilaahay u soo noqdaan arsaaqad ilaahay oo simira fara badan ehelka halkan degan maka ku arsaaq buu ilaahay ilaahayna uu aqbalay yujba ilayhi thamaraat kulli shay milaha caalamka oo dhan baa la keenayaa iyada waxba aanay ka bixin taana ilaahay uu aqbalay isagoo ka feejigan halkii hore ee ilaahay uu la yanaalu ahdi dhaalimiin ee loo sheegay in aan ilaahay hogaaminta wanaagsan u dhibaynin kuwa dhaalimiinta isagoo tii ka feejigan ducadii wuxuu ka reebay dadka aan shahaadanaynin alla yaqaanka ahayn arsaaqada iyo amniga waxaan ku weydiiyay man aamana minhum billahi wal yawmil aakhir ayaan ku weydiiyay ilaahay wuxuu u sheegay markaa bahashan adduunyo rabbi agtiisa inaanay qiimo ka lahayn oo gaal iyo islaam ba loogu deeqayo qaala waman kafara fa umati'uhu qalilan thumma adarruhu ila cadaabi الnaar ka gaaloobay laftiisana waan siinaya arsaaqada adduunyada deeyadaaba iska qaliilaho iska yarba iyadaaba qiimo weyn balahaynba hadday qiimo leedahayna gaalkaas uu ilaahay ka calaf goyn lahaa sidaas markaa ducadii nabi ibraahim loo arkay iyada oo ilaahay uu aqbalay subxaanahu wa tacaala naxariistiisii badnayd bay ka mid ahayd dadaalkii uu goobaha muqadasaadka u soo dadaalay dhismihooda iyo hagaajintooda iyo dadka siduu ugu hanuunin lahaa arrimahaas oo dhan baa ka mid ahaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد وآيات بقولي تطبيع لباتن كم إذا سورة البقرة قصة النبي إبراهيم بين كل حجرني هي أساس كي اسمه كعبة هي تاريخ ذي ونكسنة الهيد هي دلالك النبي قال الله تعالى إلهي بأوحد وإذ وقت النبي محمد ودتك أشياء حص وتاريخ ذا قيمها إلا ذاتك وقورها يرفع إبراهيم نبي إبراهيم وحكر يلي القواعد من البيت ساسك كعبد كرو قاذا يدسي وإسماعيل ونبي إسماعيلنا يسقنا ودسيا ولا دسيا ربنا ذي قائلين ربنا
labadooda waxay leeyihiin rabbiga yow taqabbal minna ilaahu naga aqbal cibaadadan aan wadno innaka anta as-samiicu al-caliim adigu waxaad tahay kii wax walba maqlaya ee wax walba ogsoon rabbanaa ilaahayagiyo wajcalnaa muslimiin waxaad naga yeeshaa laba kuu hoggaansan laka adiga wa min duriyatinaa ubadkayagana waxaad ka dhigtaa ummatan muslimatan laka ummad adiga isu kaa dhiibtay oo kuu hoggaansan wa arinaa manaasikana wa arinaa waxaadna tusisaa manaasikana goobaha aanu ku cibaadaysanayno watub calaynaa ilaahay ou naga towbad aqbal innaka adugu anta adugu attawaab kii addoommaha aad towbadda uga aqbala ayaa tahay alraxiim ee addoommaha u naxariisanaya rabbanaa ilaahayagiio wabcad fiihim waxaad ka soo dhex saartaa ubadkayaga rasuulan minhum rasuul iyaga un ka mid ah yatluu calayhim aayaatik aayadahaaga ku dul akhriyo oo bara sida loo akhriyo si ay ugu khushuucaan ay uga faa'idaystaan wa yucallimuhum lkitaab wuxuu barayaa kitaabka axkaamtiisa iyo macnihiisa iyo walxikmata faa'iidooyinka faraha badan ee kitaabka ku jira ama sunnihiisa wayusakiihim waanu tarbiyeynayaa uu rabaynayaa innaka adigu anta alcasiizu alxakiim waxaa tahay mid awood badan xikmad badanna ducadaasaa markaa uu istabageliyey nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyadoo uu ku berber taagan yahay inankiisii ismaaciil waxaynu wax yar ka odhan lahayn dhismaha kacbada iyo taariikhdeedii marka hore fadligeeda qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay kacbadaasoo de ah halkaynu u tukanayno ee salaadu la-aanteeda aanay ansaxaynin ilaa loo tukado xaggeeda loo jeedsado caalamka meel waloo la joogana looga soo jahaysanayo cafwan fadaa'ilkeeda waxaa ka mida inuu ilaahay ka dhigay gurigii ugu horeeyey ee alla daraaddii looga dhisa caalamka ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaarak mar hadduu qur-aanku caddeeyey gurigii ugu horreeyey inuu yahay waa afdaliyadda iyo asbaqiyadda iyo qiimahay leedahay wey waxaa dhisay malaa'igtii ilaahay iyo ambiyadii ilaahay oo si aynu xusi doonno ciddii ugu horreysee dhistay waa malaa'igtaba aqwaasha qaarkood leedahay laakiin waxaa la hubaa oo halkan aynu ku haynaa ambiyadii ilaahay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil inay asaaseen innagaaba haynaa taariikhdana waxaa ku sugan oo ku cad nebiyullaahi moxamedna sala allahu calayhi wasalam ismaheedii inuu ka qayb ahaa kacbada sharafteeda iyo qiimaheeda waxaa ka mid ah ay culimmadu leeyihin waxay ku beegan tahay beytulmacbuur guriga malaa'igtoo dhamme ay marayaane samada ku yaalla oo iyagana kacbadii uga dhigan ayaa uu ku toosan yahay sharafta diinteennu ay u yeeshay waxaa daliilo ahoo sii caddaynaya inuu nebi moxamed diiday sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixa ahaa markuu qofku xaajo gudanayo inaanu xagga qiblada u sii jeesanin dabadana u jeedinin hadduu dabcan ikhtiyaar leeyahay oo dee meel bannaan uu ku tukanayo waxaa cadoo sugan ambiyada ilaahay inay ku soo xaji jireen kuna sii xaji doonaan ilaahu nebi moxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ciise bnu maryama laftiisu inuu ku soo xajiyi doono oo uu ku soo cumraysan doono waxyaabaha badan oo wixii wanaagsan oo dhan ah waa loola jeedsadaa sida maalan qofku markuu qur-aanka akhriyayo ducaysanayo weysaysanayo wixii khayrla uu wadoo dhan fadaa'ilkeeday ka mid tahay inuu ilaahay ilaaliye subxaana wa tacaala oo meelaha la gumaysta aanay ku jirin waxaa jira cibaadooyin u baahan ansixidoodu in kacbada un lala qaabilo waxaa ka mid ah salaadihii aynu tukanayna inaynu kacbada ula jeesanno xaaladii dee aynu ka soo warranno ee kalifku jiray mooyaane waxaa ka mid a qofka haddii la aaso in jinaasadii loo jeediyo kacbada xoolaha marka la gowracayo markuu qofku dawaafayo markuu sacyiga la imanayo xaaladahaasoo dhan inuu kacbada qaabilo waxay tahay waxyaabaha islaamku uu suga ee waajibka ah intooda badani waa waajib kacbada markaynu usoo noqonno magacyadeeda magacyo dhowray leedahay waxaa ka mid a alkacba sidaa ilaahay qur-aanka uu ku caddeeyey hadyan baaliq alkacba xoolaha waa in la gaadhsiiyaa kacbada waa hadyi gaadhaya kacbada halkaasa xaramka lagu soo gowracaya البيت المبارك للذي ببكة مبارك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مركب بيت بالله إلى هذا أما البيت المبارك
بيت الله نوالينا وإننا أركينا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي بيتك إلهي وي البيت العتيق نوالينا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وبيتك عدوغا لقبت بادية أما قديم كما هذا اسمه القبلة نوالينا هذا فلنولينك قبلة ترضاها البيت المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قاعد يسكم التهاي وحا إنوسو قد بلهين اسمها كعبة انت اللي أكسوني هاي إلى لبية طبان شير أيها الله حسا كعبة اسمه هذا لبية طبان كعشان كم إذا ولا اسكوها فقسيني هاي وحسن لا اسكو خلاف سيني هاي تضبا كم إذا شنت لا اسكوها فقسيني هاي مدواتها إنه هالكن كوهين سورة البقرة إلى هاي هالكن وإنه عديين اسمه هذا أي وذاقين بلابيين إكساس كبك بلابيين نبي إبراهيم إن كيسي إسماعيل والنبي إبراهيم نوستات كوها إسماعيل لكي ساعدة يكولي وها أيها مثل الله هذا اللي سلوها فقسيني وحوي قريش الدب ودست كعبة نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتي أن لصادرين 5 سنة كهر قبل البعثة ب5 سنوات 5 سنة كهر waxay se ka soo gaabsadeen ismihii nabi ibraahim marka inta yar imika gaabana deyrka ah ayay ka soo jareen oo yiraahdeen ma wada dhisi karayno wax xalaashan inoo gaaray nimankaas xaaraanta way iska cunayeen laakiin waxay ku leeyihiin beedka ku dhisi mayno dadka qaar kood baa imika inaga waxay yiraahdaan waxayga ma ka xaji karaayo sadaqa ma ka bixin karaayo hadda waan cunaya marka waa falsafadii raqaloocan almuhim نبي محمد بالله عليه الصلاة والسلام خلاف نحن ذكر عيسى تاريخ كوارك دونته أيها يسقوا حليايو يسقى بحال ونقضايا واكي قا أنتوا لها لها قبطة يسقوا صاروا اسمها مركا قيب وكاه رسول صلى الله عليه وسلم وقت قال بعض الإسلام فقسين بوها وقت استحاد الإسلام فقسين واسمه والسميي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقت جو حرمين كم ضحضها أيو يسقون أنتوا الدميي ayuu u dhisay siduu nabi maxamed doonay nabi maxamed baa wuxuu yiri hadii aanan ka baqaynin quraysh inay didaan ama diin la'aan ku dhacaan ama gaalnimo u baxaan markuu Aisha la hadlayay dhismihii nabi ibraahim baan ku celin lahaa deyrka yarna waan ku dari lahaa laba albaabna waan u sameyn lahaa intii buu isaguna sameeyay xajaaj bin yuusuf baa ka daba yimido isaguna markaasoo intii ka bedelayo sidii quraysh ku celiyay deyrkii yarana gaar buu soo jaray albaabkii galbeedna wuu xiray sidii quraysh ku dib ugu celiyay halkaas waa 4 baan filaya marka shanaad la isla waafaqsan waxa weeye taariikhda islaamku markay hayda hijrigu 1040 ana 1040 oo imika aynu ka joogno 400 oo sano ayaa waxa dhisay nin la oran jiray as-sultaan muraad oo kamid ahaa dawladii Uthmaaniyiinta kacbada wax badan oo duufaana iyo daadad iyo dabaylo iyo waxba ku dhufto marka qaybo badan baa dumay ninkaasina niman dhismaha aad u yaqaano Masar ka keenay iyo dhagax wanaagsan iyo qoryo wanaagsan iyo waxba ku sameeyo dib u habayn aad u fiican ayuu ku sameeyay waana dhismaha ay hadda ku taagan tahay mar walba la dhisana waxa loo sii dheereynaya kor dhismuhu kor buu had iyo jeer u sii soconay macna xagga dherarkiisa baan ka hadlaya waxa imika wax ku yara kordhiyo yara hagaajiyay dawladda Sacuudiga ama ninka ugu weyn wuxuu ahaa boqor Fahad ayaa xooga albaabkan dahabka ah ee kacbada iyo inaha suuqa isaguna ku yara kordhiyay marka shanta hore ismaha nabi ibraahim iyo ka nabigu quraysh la sameeyay abdullah ibn zubayr xajaaj ibn yuusuf iyo suldaan muraad shantaas la isku waafaqsan yahay todobada la isku khilaafsan yahay waxa weeyaan waxa dhisay la leeyahay malaa'ikta nabi aadam iyo nabi shiif وصدح دبا النبي إبراهيم كهريين صدح الاسماء يعني ما كي عمالقة ووينا إيريا ذا مرد الجناء قرادي وحدت كلاها نبي إسماعيل هير جرهم لورين شري قال هير خزاعة لورين شري وضيق قريش لفتيسة قصي بن كلاب قريش الأكبر لورين تضبط شرنا وليسكو خلاف سيء هاي وحق الدليل هام باني الدليل لعسكراس وغن أيان الهين المهم وقوة بعدي هذا قالية marar badan waa la soo weeraray xaga taariikhda kacbada hadii aad akhrido
oo maaragtay muqadasaadka iyo kutubta ka warrama haddii aad akhrido shiicadaa mar ku soo duulay marar badan nasaaradaa ku soo duulay mar walba ilaahay baa badbaadinaya subxaana watacaala waqti uma hayno inaha in la eg ayaynu ka xusi karnaa maadaama dhismaheedii aynu taaganahay dhismaha iyo wixii markaa inaga khuseeya maalmo dhoweyd ninka meesha boqorka yarka ka ah waa kii dhakada uga baxay dadku aad bay uga hadleen social mediaha iyo meelahan hadalka la isku gaadhsiiyo miyay bannaan tahay mise ma bannaana markaa wax wuxuu dhimayaa xagga maaragtay kacbada iyo ma aha haddii dusheeda la fuulo xaaraan ma aha xagga sharciga waayo kutubta fuqahada waxaad ku arkaysaa qofku hadduu kacbada dusheeda ku tukado salaadu ma ka ansaxaysa kacbada gudaheeda hadduu ku tukada ma ka ansaxaysaa xaguuse qaabilaya hadduu kacbada ku tukado kutubu shaaficiya waad ka arki karaysaa dusheeda hadduu ku tukado haddii gidaar yari uu ka sarreeyo wuu ku tukan karaabaa markaa ay xusayaan waid yarfacu ibraahim marka lafdiga ereyadaynu soo noqon doonaa inaynu macnayno nebi ibraahim baa wuxuu kor yeelaya alqawaacida min albeyt macnaha sawirkii xaaladaasi ay ku sugnaayeen quruxda badan baa lagu sawiraya ficilkan mudaarac waa istixdaaru suurati almaadi muuqaalkii waktigaa tegey baa lagu soo hordhigaya hadduu kor yeelaya oo aad arkaysa isagoo dhisaya isagii ismaaciil hees hawleedkoodu waa maxay dadkeennu way ismashquuliyeen soo maha markay hawl hayaan heesay samaystaan laakiin iyagu hawshooda digri baa la socda sidaasaanay ku fiican tahayoo haddii aad camal hayso kolley hadalna kaa soo baxayo tasbiix iyo ammaan iyo wardi iyo khayr ku dhawaaq rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim saasay ku ducaysanayaan ilaahw naga aqbal dhismahaasay ku jiraan laga yaaba duruuf adag iyadoo qalabkii aanu wax badan isugu hagaagsanayn amarka ilaahay ay qaadanayaan amarka ilahay labadaas shaksiyoo kale ahaayeen dhismaha intaa la ega qurayshi dhammaystiri kari weydayna way dhammaystireenoo iyagu way isku hagaajiyeen wax aad iyo aad u cajiiba wey awood ilaahay baa ku jirta waxaad halkaa ka arkaysa waynu ka faa'idaysanaynaa camal markaad waddo in kastaba ha hawl bato ilaahay daraaddii aad u samaynayso ha isku qancinin camalkaa in laga aqbalay ajarkiisiina diyaar kuu yahay laakiin mar walba waxaad ku ducaysataa inuu ilaahay ka aqbalo rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim waxay aad iyo aad ugu ducaysanayaan ubadkoodana ugu ducaynayaan inuu ilaahay tubta toosan ku hagaajiyo taasina waa mid aada u muhiimaho dadka ehelkeenna iyo ubadkeenna inaynaan hiifinaynaan haaraaminaynaan habaarin laakiin aynu ducayno xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam calaa macna xadiid ubadkiinna iyo adduunkiinna iyo naftiinna ha habaarina si aydaan saacatulijaabo u waafaqin intood habaartaabuu habarkaasi ku dhici doonaa marka ereyga wanaagsan iyo ducada wanaagsan waxaad u muhiima weeye waa waxyaabahaynu ka dhexlayna qisooyinka nebiyada rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wamin duriyatina ummatan muslimatan lak annaga iyo ubadka iyagoo ilaahu ummad ku hoggaansan ka dhig dadku waxay qiina leeyihin inay tirsan yihin ilaahay agtiisa u tirsan yihin markay yihin dad ilaahay u hoggaansan markaase ilaahay ka amar qaateen oo ay ka edebsadeen oo ay abaalmarin mutaysteen islaamnimadu waxaad iyo aada u qaali wey wa arinaa manaasikana waxay tilmaamaysaa inay ilaahay ka codsanayaan goobtan ilan dhis oo camal ku fuliya baa la yidhiye inuu meelahay ku cibaadaysanayeen ilaahay tusiyo sidaa daraaddeed ayaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markuu ducadaa ilaahay codsigaa u qadimay waa loo aqbalayoo malaa'igtii ilaahay baa waxay tusisay intuu ku cibaadaysan lahaa halkani waa sacyigii halkani waa dawaafkii halkaasi waa mabiidkii mina waa musdelifa waa carafa sidaasaa loo soo tusiyey wa arinaa manaasikana goobtan muqadaskaa meelahan ku cibaadaysan lahayn oo dhan ilaahay una tusi saasuu ugu cibaadaystay isaga iyo ambiyadii badnayde ka dambeysay uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam masjidu khayf bay ku wada tukan jireen ilaahu naga toobad aqbal innaka anta tawaabu raxiim ducooyinka nebi ibraahim calayhi salaam waxaa ka mid ahaa inuu ku sii duceeyey nebi maxamed inuu ilaahay ka soo dhex saaro ummaddan ilaahayna ducadiisii wuu aqbalay marka kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam dacwata ibraahim waxaabuu ahaa nebi ibraahim ducadiisii oo ilaahay aqbalay ayuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaah waxaad ka soo dhex saartaa rasuul bal sidii u duceeyey ayuu nebi maxamedna u yimi waa rasuul aayadaha akhriya rasuul iyaga ka mid a oo aayadaha akhriyayo oo macnihiisa baraya oo xikmadda uga soo saaraya oo rabaynaya intaasubu ilaahay u aqbalayoo suuratu aljumuca awalkeeda akhri
إنه النبي محمد أنت أصوت المعبد والنبي إبراهيم كسي دعية أيو ياشي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مركة تلاوة هي التعليم هي التزكية أنتم بمعنى قاري حنبارسين تلاوة وارد مهمة تلقي نوى وبهنت إنه قف القرآن كيلا أنا إسكا أخرية وكوجف يا قرآنك وكوجف يا قرآنك واجباتك سوحوي إنه معلم ويا شقف أركانتي تجويدك وحكمها التلقي من أفواه المشايخ إلا قال كل ما أفك شيوخنا سيدو النبي قبع عليه الصلاة والسلام أفك ملك أو قاضي أصحابتنا أفك النبي جاي كقاتل ساسو قرآن قص عنايا وحبضنا إلى يديسه قرآن الآخرين نبى شرح حرفها هي قارن بوقنين ولا آخرين مركتاوين براروجين لهين خلادات كدتك قرآن كآخرية ترى وبضم بخلدان دتك مرك قرآن كوحو باهي هي إن حتى أودياشي نواوين يا دتك متعلمين متعلمين تآخرية قرآن هاي سكون قنعين إن هذا منات أفعربي التقارنات آخرية قرآن كريم كوحو باهي هي إن الآخرية تلاودي سولا قاتو قف آذو يقان dadkii quraada ahaa iyo mutakhasisiintii iyo way badan marka laga faa'iideystaa way baraarujinayna tacliimtiina waa la mid way yucallimuhum iyaduna waa tafsiirkii qofkii wuxuu noqonayaa malab mid sidoon macaankiisa garanay hadduu quraankii xambaarsan yahay oo xifdisan yahay laakiin markuu garanayo macnihiisa iyo siduu ilaahay ula sheekaysanayo siduu ilaahay ula hadlayo baba ka daalayaba la tashba' minhu ulama saadaradeed baana culimadu kaba dharginba حكمته وأحكامته هي أسرارته هي وحقيمها بدنا القرآن كتير ولا جو معنيه وعكلوا له جو معنيه حديث يدا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كشرحيس إذا ولا جو معنيه أنت بقى حسيد إرادة ويزكيه نبي محمد والتزكيين يدك تزكية ده محور تربية ومعنى كان إرادة تلاوة هي تعليم تيرا تذكر تربيين يا قعنتي سوق سر ربي رسولك صلى الله عليه وسلم قرني فضل قبضنا صحابة iyaguna umada sii rabeeyay adduunka badbaadiyay marka door weyn bay leedahay tarbiyadu tacliin kaliya inaguma filla waalidka la doonaya inuu dadka taskiyeeyo tarbiyeeyo muallimiinta la doonaya madaxda la doonaya culimada la doonaya dadku marka la tarbiyeeyo ayay dad noqdaan la isku halayn karo innaka antal azizul hakim qala allah ta'ala ilahi baa wuxuu waman yarqabu ya na'aya an millati ibrahima نبي إبراهيم دينتي سيا معي إلا من قف مويانه سفيها نفتي سي فضوضيي ولقد اصطفيناه نبي إبراهيم ونضارنا في الدنيا ده وإنه في الآخرة لمن الصالحين آخرنا وحكم ذي هاي تتكوى ونأكسن إذ وقت حسن نبي محمد وقال له ربه إلهي سيبا نبي إبراهيم كوري أسلم اسليم وإلهي كتشها يسنو وإلهي قابل بالي قال وحوري أسلمت لرب العالمين وحاني سدي بونا كبيرين إلهي أمر كيس إلهي رب العالمين كا إلهي ساني سدي بيبو ديني واتي النبي إبراهيم وإسلام كا تيبانا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وكو صادري تاساني رسوش أولمي دادك أبويا ريين ودين تا إسلام لماذا صحيحة ديمها كلا أردن إلهي وكدورتي وري قرآن كريم دائمك مالت انفر بدن وكو امانه ان الدين عند الله الاسلام دينته الهي وقال يعترف سي ودما كقبل وتا اسلامكم لفظ الاسلام هي صار نقنقنيا وهي اسلامنimadu waxay ka turjumaysaa iimaankaaga xaqiiqadiisa iimaan baan iska leeyahay aan islaamnimo lahayn shaqo ay kullu meen weyn nimankii la oran jiray murji'ada oo firqado kale oo shisheeya ku sii deynay anigu dacaasiba aan iska ahaado لكن هذا ندى إيمان كيجو إيشرا يجوا أورنا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إيمانكم من السيادة من الناقصة ومعصية كستهتات سنة يسمى الناقصة تاسنا أهل السنة والجماعة بده يكون خلافين ويودين تنو دليل للسوق هذا يوم إيمان كيجو إيشرا وحكم الخاتية سلام ماذا وكائل هيكو علينا النبي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه وقع عصا الله بحنا يقول الكافر هو السفيه قفك دين النبي إبراهيم ديدا هو السفيه سفيهنا هو وحويان قف عقل كعبة كراد لاوة إن دير قردي أقويها مدة لقوا مشي يا عالم طارع قرآن كاو بحيوه السفيه وي كل دو دين النبي إبراهيم حق هاي ديدا أنا دورتي بولاهيد آخرنا ودتك ونكسب بكتشرة ويا أمر كي إلهي بقات إلهي بالله الله يري أسلم
aslim ilaahay u hoggaansan wuxuu ku faray oo dhan fuli wuxuu kuu diido o dhan iskaga tag islaamnimadu waa caynkaa weeye waa ficlu lma'muuraat wa tarku lmanhiyaat diintuba labadaasay ka koobanta wax lagu faray oo faral iyo sunno ah iyo wax lagu diiday oo xaaraan iyo karaaha ah amarkiisaasuu ku qaatalo deg dega eeg aslamtu lirabbi alcaalamiin addoonnimadu saasay sheegaysa markaynu salaada gala maxaynu leenahay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin waad isdhiibaysa lilaahi rabbi alcaalamiin noloshayda iyo geeridayda iyo gowracayga iyo salaadayda ilaahay baan isu dhiibay ayaad leedahay markaad ilaahay is hortaagto ma liibaanayo kabtiina ma yaalla waana cidhib laawe qofka ilaahay ka warwareega subxaana wa tacaala ambiyadii ilaahayna inay ilaahay isu dhiibeen ee u hoggaansameen ay islaamnimada tusaale iyo hormuud ku ahaayeen ayaa qur'aanku inoo caddaynaya halkaa ilaahay uu noogu sheegay subxaana wa tacaala wallahu subxaana wa tacala aclam